waxa uu xidhay dhammaan wadooyinka magaalada Gabiley waxaanu dhibaato badan ku hayaa isku socodka magaalada. Geedka Garawaagu waa geed ka mid ah dhirta balse dhibaatooyin ku haya magaalooyinka gaar ahaan magaalada Gabiley kaasoo sanadihii ugu dambeeyay guud ahaan xidhay wadooyinka xaafadaha magaalada Gabiley. Haddaba waxa maalintii saddexaad ka socda gudaha magaalada dabargoynta geedka Garawaaga oo ay iska kaashanayaan shacabka iyo qaybaha kala duwan ee dawladda. haddaba telefishinka caalamiga ah ee Bulsha TV oo wax ka weydiiyay qaar ka mid ah dadweynaha hawshan ku jiray ayaa waxa hadaladooda ka mid ahaa shaqada in badan la sugeynay oo rajaynaynay shaqadii aan rajaynaynay baa lagu dhaqaaqay ilaahay baana mahadlayay inta loo haysto shaqada marka anagu aad baan u soo dhaweynaynaa waxaanu jecelnahay in dariiqadana noo saaro intii hawshan day gashay inta ugu jirtana waan u mahadnaqaynaa ku jirto wadakaysan aad baan ugu baahnaan cagaftaas inay noo soo gasho maayirka iyo ku-xigeenka iyo gudoomiyaha magaalada aad baan u amaananaa dawladda Soomaaliland aad baan u hambalyeynaya sida fiican ay nooga soo baxday maanta maxay ahayd loo hagaajiyay intii wadadii iyo naga wada goran dhirtii aan mahad celinaynaa ragayaga iyagoo salaaman aad iyo aad noogu mahad celinaynaa si wanaagsan noogu qabtay oo loo hagaajinayo wadada iyo meel walba marka biyahana laga hagaajinayo. sidoo kale gudoomiye ku-xigeenka golaha deegaanka Gabiley iyo mid ka mid ah saraakiisha booliska ayaa fariimo u diray shacabka reer Gabiley. laba arrimood ba hawshan waan kala hayn mar waxaanu kala hayn wada banayn marna waxaanu kala hayn dhul hagaajin marna waxaanu kala hayn laab joojin ilaa inta halka ugu dambaysa magaalada afarta xaafadood ee magaaladu ka kooban tahay wadooyinka soo gala jihooyinkooda ilaa intaynu geed Garawaaga laga waayayo shaqada lama joojinayo waa la wadaya dadweynaha reer Gabiley halkan kelmad baan ka faraya maanta waanu banaynaynaa baloorka banaan waan ka guraynaa Garawaaga wadadana waanu banaynaynaa idinka laakiin maxaan idiga doonaynaa waxaan idiga doonaynaa in aqalka dambe ee Garawaaga ka horbaxo marka maanta laga jaro على أقل والبلان بربانو سمايننا أقل كستو قبل كل يلا ما أنت وبلور نمبر بالي بو جرواق لرام سمايننا أقل كستال كاسل وقرية أقل كيس كجوين ويا جناح يوم تيسان دونا حوشن بالعرن رنتي قرح بدن يجيت كان مصيبة ده معركة ميلين ده كان على الجرنين وحوينا الديرة اللي عد كستافكر كل حاجة oo horeeyo maayirka maaragtay diiray golaha deegaanka aad baan bogaadnay wixii lagu tabcan baana maaragtay ayuun baa laga miligaadaa runtii waxa weeyaan diiray leeyahay geedku oo inaga arkayna dhibaatadiisa dadweynaha aad baan u amaanayaa oo waxa weeyaan diiray shaqadan socota aad bay maaragtay ay dhinacooda uga qayb qaateen annaguna ka bilisaan waxa weeyaan hawsha balaaran ee la hayo وعبد السلام محمد بدي بولشة TV Gabiley.